ciidanka dowladda ee federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay dib u bilaabaan dhawaan duulaankii tooska ahaa ee ku wajahnaa kooxda Al-Shabaab. Gulufka cusub waxaa qayb ka ah dowladaha Turkiga, Uganda iyo Masar. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa odayaal oo xalay u qaabilay u sheegay in 2 asbuuc gudahood uu bilaaban doono guluf ay Soomaali ajaanib u dhan yihiin oo dalka looga safeynayo kooxda Al-Shabaab. dhawaan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa laga qabsaday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. halkaas waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage. waxay ahayd dharbaaxa culus oo taliyaha ciidankiisa hal mar ay ku soo jabeen, laakiin Odawaa iyo dadka ku dhow waxaa laga soo warinayaa inay fashilka qaybtiisa u weyn ay tahay faragelinta ay filla Soomaaliya ku hayso ciidanka xoogga dalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhalinyaro ku dhow iyo xubno qoyskiisa ayaa dhowr jeer la sheegay inay farageliyeen arrimaha ciidanka xoogga dalka. dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho ku qaabilay taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage. waxayna ahayd maalmo kadib markii ay kooxda Al-Shabaab ay dib u qabsatay degmada Aadan Yabaal. warbaahinta qaar waxay warisay inuu Odawaa doonayo inuu shaqada ka tago, laakiin waxaan soo ogaanay ama aan soo xaqiijinay inuusan Odawaa dalbanin shaqo ka tagisa, balse taasi beddelkeeda uu ka dalbaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in faragelinta laga dhaafo ciidankii arrimihiisa shaqadaas isaga loo madax banaaneeyo, oo xitaa haddii uu madaxweynuhu arrimo uga baahdo ciidanka inuu isaga soo maro halka uu Xasan Sheekh Maxamuud toos ula soo xiriiro saraakiisha oo qaarkooda. xogta aan helnay waxa ay sheegaysaa inuu madaxweynuhu aqbalay joojinta faragelinta dhowrka waji leh ee ka dhaxayso ciidanka xoogga dalka. in arrintan laga dhabeeyo oo ciidanka loo madax banaaneeyay taliya Odawaa ayaa saraakiil aan la hadalnay qaar waxay aaminsan yihiin inay keeni karto guul degdeg ah oo ciidanka xoogga dalka ay ka gaaraan kooxda Al-Shabaab. haddaba sidee u aragtaa adiga?